xukuumadda Soomaaliya ayaa go'aansatay in dib loo dayactiro hoteelkii Curub ee magaalada Muqdisho ka oo kamid ahaa dhismooyinkii muhiimka u ahaa dawladdii dhexe ee burburtay sanadii 1991 waxaan xilligaa wixii ka dambeeyay hotel Curub uu wajahay sanado mugdi ah oo waxa saameyn xooggan ku yeeshay dagaaladii sukay ee dalka ka dhacay waxaan iminka dib u soo noolaanaysaa harajadii dawladda ee dib u howlgelinta hoteelkaasi wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayr Maareeye iyo qobar injineer ah ayaa soo indhindheeyay hoteelkaasi wasiir Maareeye ayaa ka hadlay arrimaha dib u dayactirka ee hotel Curub hoteelka weyn ee Curub oo dawladda ay doonayso in dib loo dayactiro la weyneeyo maalgelin xoog lagu sameeyo si uu u noqdo xarun weyn oo burjigii uu lahaa iyo sharaftii uu lahaa dib loo soo celiyo meel dawladdu ay ku qabsato shirarka caalamiga ah ayaanu doonaynaa marka sida aad arkaysaan maanta kormeer baanu ku nimid koox injineer baanu keenay waxaanu ka codsanaynaa kambaniyada waaweyn ee Soomaaliyeed iyo kambaniyada caalamka in dawladda Soomaaliyeed go'aamisay in hoteelkan dib loo dayactiro la weyneeyo waxaanu doonaynaa inaanu la duugo badda 500 oo tallaabo la duugo loo sameeyo meel ay doomuhu ku soo xirtaan oo markii dad ka yimaadaan meel badda ama dalxiisayaal yimaadaan meel ay ku soo xidhaan oo deked markabku ku xidhan karo hoteelka ku dhegan in loo sameeyo mararka shirarka lagu qabanayo erogooyinka ka imaanaya dhinaca badda xalana oo kale meel ay ku soo xidhaan loo sameeyo xukuumadda Soomaaliya ayaa haddii ay ku guuleysato dib u dayactirka hoteelka Curub waxay taasi daboolaysaa baahida dawladda ee goobaha ku habboon qaabilaadda ufuud heerka caalami ee dalka soo gaaraysa